laysma gaadhin. Okay, you understand in raggu sheekooyinkooda ay ka sheegtaan arrimahooda ay ka wada hadlaan arrimaha u dhaxeeya iyaga dhex yaala ay ka wada hadlaan ceeb maaha laakiin maadaama aad siil caabud wada tihiin kulligiin ceeb baad buu malaysaa nin raga inuu sheekadiisa kaaga sheekeeyo oo ku dhaho baraada sidan baa wax u jiraan ama baraada ninkan bay sheekadan ku dhacday ama hawshan baa sidana naagaad wada noqoteen kulligiin in la idinka jeexun baa idin wada dhiman waraa dil daanyeerka intuusan ku dilin dil daanyeerka intuusan adiga ku dilin YouTube ka subscribe soo saar 1 million likes na gaadha barnaamijkan. Okay, waa idin sheega beeci shalay iyo beeca maanta isku mid maaha meeshan cid aan qancinaya ma jirto baraada walaa adiga walaa naag walaa xaliim cid aan qancinaya ma jirto runta siday tahay iyo sida aad dareemaysa waa kala labo haddaad dareemaysid inaad nin fiican tahay fiicnow ilaa aad sonkor ay kaaga dhacdo qanci naagaha igu soo dhisa naagaha kulligiin. Understand? Perhaps 2022 ama daanyeerka inuu adiga ku dilo. Understand? ama daanyeerka inuu adiga ku dilo ama inaad adigu daanyeerka dishid ama inaad fiirisid noloshaada iyo dantaada oo aad hurdada iyo ka kacdid maxaa la dhigi jiray chiefka ya baad u baahan tahay anigu gaar baan samaysanaya naaguhu gad weyn bay jecel yihiin lacagta saliidana nifcaaga ka tuugsanaysaa naaguhu nin chiimka aaday jecel cuntadii chiimka xataa ma haysid waxaan waa la isu balance gareeyaa lacagta chiimka labiska waxaan oo dhan waa la isu balance gareeyaa. Okay maaha hal dhinac maaha ha u bedelin qof sidaad u eg tahay war waxaan yaabay mataqaanaa rag afka bira ku wada sitaniyo rag afka bira ku wada sita laba qof baa wuxuu soo qoraya ilkaha iska hagaaji ninkii laba bari kadib biruuba wataabano kalsooni daradii halkaas ay maraysaa. You understand? ma hadli karaysid waxa waaye waa tacbaan baad wada noqoteen baad wada baqaysaan baad wada hurdaysaan kadibna waxaad rabtaan stiil inaad noloshan wax ka heshaan kama helaysaan naagaha isu soo garaacay bes baa idin imaanaya naagaha tacbaanka baa idin imaanaya naag 300 kg waa qaadanaysiin mid oo maxaa la dhigi jiray qaraabata waa qaadanaysiin mid xataa waxaan arkay dhahaya anigu gaas xaliyow anigu maxaa bikrada iyo waxaas muhiim maaha because of waa daalan tahay naag bikra ma heli karaysid shuubooyinka la macaamisha ya naagaha daalan baad big deal u haysataa dhinacana waa laga burinoyaa lacagtiisii oo dhan iyo wax kasta gacanta lagu haya ninkii saasay wahayd ciyaalka manipulationka ugu weyn ee naagu ay sameeyaan waxa waaye ciyaalkaaga soo bahalkiyay fak ciyaalka baraada adiga haddaad luus garaynayso fak ciyaalka fak iyada fak qof kastoo kugula dardaarmaya inaad naagta sii qabto sooy baxso baraada waxaad tagtaa maxaa la dhihi jiray Kazakhstan aad baraada ciddan hala hadlin ilaa intaad ka soo dilayso daanyeerkaas ilaa intaad daanyeerka ka dilayso Kazakhstan ku soo noolo baraada. Okay iyo Croatia okay meelahaas aad baraada ninkii odayga ahaa 10 sano uu sidaa ku jiray 10 sano kadib shaqo la'aan buu noqday darbigu soo istaagay maxaa la dhigi jiray reerkiisa iyo walaalihiisa iyo raggii maxaa la dhigi jiray caawin lahaa de mar hore kala dhinteen because of wuu diiday daanyeerka inuu dilo rag nasiib leh baa dila daanyeerka habarteed bay ka tahay waa dili waayay daanyeerkii naagtii isaga oo uu qabo bay nin kala soo xaraysatay nin kala isagoo uu qabo ciyaal ka dhalay naagtii waa la buriyay isaga moogtay nin kala soo xaraysatay xariif kale oo isna daanyeera baa qoftii ka maxay sameysay mataqaana waxay samaysay canug bay u qaaday canugii waxa ku dhacday adaa dhalay daanyeerkii hore meesha sii joogay baa waxa lagu dhahay canuga adaa dhalay canuga see ku dhalay adigu qabsi kadib waxa la sameeyay DNA baa la sameeyay DNA-gii baa la soo ogaaday canuga isagu muu dhalay daanyeerkii muu tagine kulaha way soo hanuunaysaa daanyeerkan haddaad hore ka dili weydo adigu ku dila adigu kow kaasiinaya waa soo hanuunaysaa xaliyo kulaha raja igu jirtay manaag inta baxday hoosteeda dhiibatay oo nin kale uu canug ka soo dhalay kugu nabtay aadii anayga soo ogaata raja ka qabta no problem daanyeerkii buu dili waayay adiga calaa taxal daanyeerkii waa ku dhex nool yahay wali raju ka qaba canugii labaad oo nin kala dhalay ba haddana uur ay qaaday markii buu waaw ku bariyay lacag ma hayo guri ma hayo waxba ma hayo 8 bilood buu wuxuu dhahay saaxiib cid xataa la noolaada waan waayay homeless baan noqday maxaa la dhigi jiray dawladda shaqa iga xareysnayd cayr inaan bilaabo maartay isheeg ay noqotay noloshii iyo dhan baa isku wareertay 10 sano daanyeerkii uu dili waayay buu hadda la dagaalamaya wuxuu u dhahay saaxiib barnaamijka waa aad buu caawi okay xataa ninkaas
heer wuxuu hadda maraya wuxuu ugu dhahay sonkorta tan yar baa ugu dhacay sonkorta laba qayb waa I think waxa jirta B iyo A laba qaybood waa sonkor baan qaado ugu dhahay saaxiib okay boqol iyo wuxuu ugu dhahay waxaan ahay 42 kg ma fahmino waa nin yar waa 46 sano jir waa okay daanyeerkii buu dili waayay daanyeerkii baa ku dhex noolaaday 5 sano ama 10 sano oo kale qaadanaysa inuu dilo oo daanyeerkaas la macaamilo oo isagu noolaado meeqa nin baa jira maxaa la jiray Yurub iyo maxaa la jiray Mareykan jira oo la noolnaago guryaha dawladda naaga ku jiray la nool yihiin oo ay cuntada la cunaan because of all everywhere waxa waaye wuxuu daadiyay seedkiisii okay naaga halkaas ay maro aniga naag meedayno daanyeerka dil brada dil daanyeerka dil intuusan adiga ku dilin wax badan bay kugu kosti garaynaysaa brada ilmihii waa sooy wuxuu ugu dhahay brada ilmihii naagti maalinba nin bay soo xaraysataa ilmihii isagu dhalay marba nin bay soo xaraysataa buu dhahay okay isagii gooni buu ku nool yahay hadda kadib fiiri shaqo la'aan baa tahay lacag la'aan baa tahay guri la'aan baa tahay ifan ciyaalkaad xalaasha ku dhashay shaki baa galay oo laba kamid ah adigu ma dhalin DNA baa la soo qaaday isagu muu dhalin okay waxani waa sheekooyinka maalin kasta ka dhaca bulshadeena laakiin cidna kuma sheegayso maadaama aad cabdi orom tahay cabdi orom cabdi Suudaanis maadaama aad tahay oo ay gabdhuhu Soomaali yihiin Soomaali maadaama ay gabdhuhu yihiin adna cabdi Suudaanis tahay lagama hadlayo waa been walaalo waxaasi waa nabasho waxaas waa nala nabanaya anagu Soomaali baa na walaalo waxaas ugu jiraan fuck that shit bro waxba gaba jiraan ninka odayga dan rag kale badan ya the same ay ku nool yihiin ilmihiisa adduunyada keentay waa khasaare waa u dhamaatay naagtaad la joogtaad la noolayd waa shuubo waxba yaan la isu qarqarin naag adoo maxaa la jiray qaban nin kale la seexanaysa idinka surprise bay idinku tahay naagahan hadda soo baxaya ee dhahaya nin bay ciyaal bay dhashay iyo 8 canug bay lahayd iyo I don't know what the fuck that is but cadayn waxay u tahay ragga Soomaaliyeed meeshay gaareen horaan nin dhalinyaro ah oo maxaa la jiray you know laakiin sometimes dhalinyaranimadan laftirkeedu waa maskaxda muft sidaa u egtahay ma dhalinyaranimadani understand dhalinyaranimadani sidaa u egtahay ma aha okay meeshu ka oynayaaba wax kale ma aha waxay laba nin oo Soomaaliyeed ay hal naag aniga waxa igu dhahday ciyaar u malay because of maad soo arkin okay maad soo arkin markaan kaaga sheekay ma hagaajin karaysid ma toosin karaysid okay brada waxaad u baahan tahay inaad isbedesho okay inaad isbedeshaad u baahan tahay sheekooyinkan oo dhan waa laga qarqariyaa laakiin laba xaniyoodlayaasha sheekooyinka ay soo dirayaan madayo waxaad ka dhex arkaysaan iyo maxaa la jiray waa sidan iyo bararaqda naaguhu ay idinka dhaadhiciyeen okay daanyeerkaas hadduu hadda kugu dhex nool yahay dil daadaada hadday u dhaxayso 20 ilaa 20 iyo maxaa la jiray 9 ilaa 30 ilaa 35 naag wax aad isu sheegaysaan ma jirto the only thing aad wax isu sheegi kartaan waa inaad teamkaaga aado maskixiyan u diyaarsanaato oo maalin kasta kor aad maxaa la jiray isu qaado lacagtaada aad ilaalisid maxaa la dhahaa mental health kaaga maskaxdaada nabadda maskaxdaada waa muhiim ragga waa isla sheekaysanayaan ragga waa isla sheekaysanayaan maxaa u malaysaa internetka inay iskugu boojeynayaan maxaa u malaysaa internetka iskugu boojeynayaan maxaa u malaysaa ragga inay maqaayadaha la wada fadhiyaan iyagoo calool iyo daba kuusan maaha wax kale waa stress brada raggii waxbay cunooyaan markuu stresski ka batay cid la hadlaysa aysan jirin cid wax u sheegaysa aysan jirin meelay sheekooyinkooda ku sheegaan aysan jirin meelay ku sheekaystaan aysan jirin kulli waxay noqotay maxaa la jiray ii sheeg naag Soomaaliyeed idinka orama ma tiin brad ani waa yaabe ani xataa waxa is dhahay brad waa iska shakiyay Suudaanis maata adiga ani xataa shakiya qaaday xataa Suudaanis maata dhaxliye idinka sidii Suudaanis kale idin la dhaqmooyaa brad okay like iskan 1 million gaarsiya nin laba xaniyood la soo qoray oo hamidar waa hadda kor waa idin sheegay beeci shalay beeca maanta waa kala duwanaanayaan beeca waa isbedelayaan okay ragii ma artay markii awoodii ka dhamaatay oo meel kale shax kale ay garan waayeen waxay keeneen moogta strategy la dhaho naagta been ku soo xiragali run ku dhaq wax la dhahaa ma jirto 2022 filimka ma shaqeeyo okay adaan rabaa inaad run ku noolaatid okay maalinka aad naago kuma dhahay hal naag maalinka aad naago okay aad keenaysid
oo aad noloshaada bilaabaysid inaad naagala macaamishid waad baashaalaysaa baaba aa lagu leeyahay baaba you understand adiga waxaad u malaysaa hadda inaad joogto xilligan inaad naag u baahan tahay because of guskaaga ma control karaysid guska gacantaad ku wadataa waa kaa horeeya guska ku fakaroosaa okay markaasaad boosaneer kasta la kor istaagaysaa boosaneer kasta waad la kor istaagaysaa shaqadiin waxay noqotay inaad u dhaxaysaan boon siigo inaad naagaha u nacamlaysaan emotional inaad noqotaan inaad meelaha ka ooydaan okay laakiin gamekaas waa isbedelayaa alpha males inaad noqotaan waay beta malekan iyo simpinimadan inaad iga daysaan waay brother waa jilceen raggiiniyo aniga waa yaabane naagahan maxay ragga u burinooyaan rag daalay waayaba rag daalay waay daanyaro waxaa jira aan la soo celin karin meeshay taagan yihiin okay daanyaro waxaa jira aan la soo celin karin meeshay taagan yihiin you understand laakiin haddii hadda daanyarnimadii kugu jirto waan kuu sheegay calaamadihii daanyarnimada oo aad isku dayayso inaad qof kasta qanciso wanaag too much oo kugu jiro oo aad qof kasta rabto in wanaagaaga dareemo gudoomiyaha wanaagga Soomaaliyeed haay waa ku salaamay wiil fiican in lagu dhaho in maxaa la dhihi jiray in sheeg maanta dhan maaragtay adiga lagu amaano bullshit kaas oo dhan attention kaas oo dhan aad u baahan tahay daanyarkii waa kugu dhex noolyahay meel rag ku sheekaystaan ay tahay laba xaniyoodlayaasha sheekadooda ay ku wadaagaan iyaga oo maxaa la dhihi jiray sheekooyinkaas ay yihiin wacyigelin waxbarasho iyo baraarujin ujeedada meeshaan isqabqabsi iyo bararaq iyo ma jirto okay